mashruucani oo ah dhagaxdhiga isbitaal cusub oo caalami ah ayaa isla markaasina waxaa laga dhagaxdhigay deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho waxaana fulinaya dhismaha isbitaalka dowladda Kuwait iyadoo ugu talagashay inay ka faa'iideystaan dadka deegaankaasi iyadoona loo soo mariyay golaha samafalka ee Banaadiriga waxaana mashruuca goobta ka dhagaxdhigay golaha samafalka Banaadiriga goobta ayaa waxaa ka hadla mas'uuliyiin isugu jira maamulka odayaasha dhaqanka culimo diinka aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn ayaa waxaa hadal halkaasi ka jeediyay gudoomiyaha deegaanka Jasiira Cabdicasiis Xaaji Cali waxa uu sheegay waxaan meesha isugu nimid dhagaxdhig isbitaal laga habeynayo deegaanka oo weyn iyo masjid wadii Ilaahay yiraahdo deegaanka Jasiira maanta waa bilowga dhagaxdhiga waay xafladii weyneedna waa dambeysay iyo ka soo qayb galayaasha waa badan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo laakiin maanta waa bilow waxa nasiib leh waa deegaanka ayaa nasiib leh oo helay isbitaal hay'adda jamciyadda Sheekh Cabdullaahi Nuuri khayr Allah siiyo Ilaahay meeshii ka bixiyeen ziyada Allah u soo geliyo waxaana rajaynayaa inuu deegaanka haduu isbitaal kan dhismo deegaan lagu soo jiito oo dhismo oo dadka kale ku soo daydaan inuu noqdo wallahi waa fursad ay ka faa'iideystaan deegaanka reer Jasiiro ay fursad ugu tahay Dr. Maxamed Sheekh Cali oo ka socda hay'adda Banaadiriga ayaa u mahadceliyay cid walba oo ka shaqeysay sidii mashruucan looga dhagaxdhigi lahaa deegaanka Jasiira oo ah deegaan haatan uusan ku oolin wax isbitaal ah oo deegaanka oo helo ayaa loo baahnay marka waxaan leeyahay hay'adii noo keentay iyo cidii ka soo shaqeysay khayr Allah siiyo ayaan dhihinaa isbitaalka oo u baahnaa deegaanka si uu u baahan yahay isbitaal weyn ay u baahnay waana loo baahan yahay baahi badan ayaa ka jirto sidii walaalkeen Cabdi oo sheegay waaye shumuubiyad badan baa jiri dhowr iyo 34 qofood ama gaaris meesha lagu duubay intaasna macnaha waxay ku noqotay isbitaal la'aan ayay ku noqotay marka runtii aad ay u mahad celinayna hay'adii keentay Professor Maxamed Maye macalin Axmed Sheekh Maxamed Suldaan Cilmi Cali Yuusufey iyo nabadoon Cismaan Nuur oo kamid ah salaadiinta iyo aqoon-yahanada deegaanka Jasiira oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa tilmaamay maaragtay yaani deegaanka qaasatan magaaladan maxal Jasiira in ay horumariyaan waxa ku xigi doona insha Allah jaamacad iyo iskuul ku xigi doona Ilaahay dooraale ka noqdo aad iyo aad waxa ugu hambali u dhaheena dadka deegaanka maanta wixii ka dambeeyay insha Allah waxaan rajaynaynaa waxa la wixii bukaan ah in lagu daaweeyo wadacayna deegaankii anay culumaadiinkii deegaankanay wadacayna ducada Allah aqbalo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي مراد كود الله سهل عافما تام الله نسيه عافما تام الله نسيه خاصة جمعية نو كانتي اسبيتال كان وآد مهم نو أهايو لب أوه قبلن ديغان كجزيرة دالنا هدنا وأماد نقينا هدنا وحالينا كسو هذا maadaama maanta dhagaxdhigayna waxa ka raaysanayna wadada oo xumeed mardeedii dadkii haweenkii iyo waxyaabo kale wadada dib ku mari jireen marka maanta dhagaxdhigan aad iyo aad deegaanka ugu hambalyeena Engineer Awees Maxamed Afrax oo ah fuliyaha mashruucan ayaa shacabka deegaanka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan mashruucan dhanka kalena waxa uu mahadceliyay hay'adda iyo sidoo kale dowladda Kuwait oo mashruucan gacan weyn ka geysatay xafladan quruxda badan ee dhagaxdhiga isbitaalka Jasiira inaan ka soo qayb galo waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo jamciyadii ugu soo deeqday walaalaha muslimiinta ee Soomaaliya iyo sidoo kale dawladii iyo shacabkii walaalaheena ee dawladda Kuwait waxaan kale oo rabaa inaan u mahadceliyo jamciyadii lahayd fulinta majlis banaadir al-khayriya waxaa kale oo rabaa inaan dhaho dadka deegaanka mashruucan waa mashruuc horumarineed waa mashruuc wax badan ka tari doono deegaanka Jasiira iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaado iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Hooseba mashruucan ayaa ah mid lagu horumarinayo qaybaha kala duwan ee caafimaadka deegaankaasi Jasiira iyadoona haatan deegaankaasi Jasiira uu yahay mid aan ku oolin wax isbitaal ah Farxii Maxamuud Yuusuf Somnius TV Muqdisho adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo
aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.